waxaan ka xunnahay oo cambaareynayna si adag falka qamiistii lagu afduubay gabar saxafiyad ah Shukri Caabi oo ka dhacay magaalada Muqdisho ma ahan oo kaliya weerar ka dhan ah saxafiyiinta iyo xorriyadooda ay u leeyihiin xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo inay si nabad ah ku aadaan ama kaga soo laabtaan goobahooda shaqada sida ku dhacday maalinkii khamiista ah Shukri Caabi oo iyadoo shaqadeeda ku socota wadada laga afduubay dhowr saacadood meel lagu haayay si qasab ah diiwaankeedii iyo xogteedii loo qaatay la qaatay aqoonsiyadeedii la qaatay iyadoo aysan raalli ka ahayn tan waxay muujinaysaa sida xorriyaadka dadka sharafkooda iyo karaamadooda loogu xadgudbayo kaliya ma aha suxufiyiinta laakiin sidoo kale muwaadiniinta caadiga ah ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho dhacdooyinka ku saabsan afduubka dhalinyarada loo geysanayo ee lagu qasbayo cod bixin ama diiwaan gelin kaar doorasho oo la isku raacsaneen aad ayay usoo badbadanaysay hadda xadka ayay soo dhaaftay waxay usoo gudubtay suxufiyiinta oo ay adag tahay had in si nabada ay goobahooda shaqada ku tagaan waxaan mar kale cambaareynayna falkaas waxaana aan cadaynaynaa mas'uuliyadda inay qaadanayso ciddii samaysay fulisay iyo ciddii amartay haddii ay doorashada la isu diiwaan gelinayo ay tahay wax sax ah oo dadku ay rabaan maxaa dadka loogu qasbaya maxaa dadka wadooyinka loogu istaagaya maxaa suxufiyiinta loogala degayaa bajaajta iyo baabuurta loogala degayaa maxaa dadka guryaha loogu galayaa haddii dadku ay rabaan oo ay ku qanacsan yihiin taa waxay caddaynaysaa inaanay dadka ku qanacsanayn in dadka maaragta lagu qasbayo falka lagu qabsaday maalinkii khamiista ahaa Shukri Caabi Cabdi waa khayru dastuuri waa xadgudub marka ugu horeysa wuxuu xadgudub ku yahay xorriyadda qofeed ee qofku xaq u leeyahay in waxa uu rabo uu diido waxa uu rabana uu sameeyo marka labaad waxay xadgudub ku tahay gabdhaha suxufiyiinta iyo guud ahaan dumarka Soomaaliyeed oo rag aysan garanayn ajnabi ka ah ay jidka ka qabsadeen maaragtay jiideen geliyeen meel aysan rabin ku haayeen dhowr saacadood oo ay maaragtay la kulantay qatar amni oo nafteeda iyo sharafkeeda ka dhan ah waxa sameeynayo waxay sheeganayaan ciidan Soomaaliyeed waxay sheeganayaan guddi doorashooyin oo magac Soomaaliyeed ku socda waana nasiib darro in dadka noocaas oo kala ah ee waxaas geysanay ay wali meesha sii fadhiyaan oo wali ay la sii taagan yihiin sida Shukri aad ka arkayseen warbixintii ay bixisay waxay sheegtay in dhowr saacadood meeshii markii lagu hayay xataa loo diiday inay shaqadeedii aado oo dokumentiyadeeda ilaa hadda qaar ay maqan yihiin waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah dokumentiyadeeda loogu soo celiyo waxaan ku baaqaynaa in dadkii falkaas geystay si degdeg ah loola xisaabtamo oo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado si gaar ah ninka ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka isku magacaabay ee aan la isku raacsanayn oo runtii xaqiiqooyinka hadda soo baxay ay muujinayaan xadgudubyada waaweyn ee uu galayo cabdikariin waxaan la soconaa inuu haysto dhalashada dalka Mareykanka dadka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa inay soo wadaan oo ay soo badiyaan xogta la xiriirta xadgudubyada uu geysanayo ninkaas iyo maaragta afduubyada uu geysanayo bulshada rayidka dadka ka tirsan suxufiyiinta iyo haweenka falalka loo geysanayo arrintaa riboorradeeda waa inay soo bataan waxaan dhiirigelinaa dadku inaysan aamusin dadku inay hadlaan xuquuqdooda ay dalbadaan si cadaan ay banaanka u yimaadaan si dadka dambiilayaasha ah cabdikariin uu ka mid yahay loola xisaabtamo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin